بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waa maalin jimco ah, waa galab jimco ah, aadan u faraxsanahay, hooyaan nahay alxamdulillaah. hooyo ilmeed markay farxaan ayadana way faraxdaa. ilaaha ma hadda iska leh isugu kaay keena meeshaan anagoo ka shaqeynana acmaal khayri ah. waxaan aad ugu mahad celinaa restaurant Saytuun maamulkiisa iyo shaqaalihiisa oo maanta isu soo xilqaamay in maxay ahaydooda intaano ilmo ah ay qada siiyaan iyo martideeni dariskeeni annagoo dhan aan naga wada farxiyaan. waxaan ilaahay subxaan qaadirka aan uga baryayaa inuu ka farxiyo maxaytoodeen ganacsiguna ganacsi meel gaaro oo barakoobo oo bulaal ilaahay uu ka dhigo insha Allah taala. waxaa kaloo aad ugu mahad celinaa walaashay Najmo Qaranbile oo maxay ahaydtood ah qof daryeel bulsho iyo qabanqaabado maxaytood meel kastoo bulshada ay ka magiciisaysan tahay taagan aan daalin madaashada qaranka. waxaa waa aadaan ugu mahad celinaa jazaakillah khayran leeyahay. markii u horeysay noo imaato waay laakiin ayadoo naga maqanay hawsha ila waday ilaahay ha barakeeyaan leeyahay. waxaa kaloo u mahad celinaa walaalkay injineer Maxamed Cali oo advisor wasaaradda beeraha ah. aadan u soo dhaweynaa Cabdistaar Carabow macalinkeena ustaadkeena maxaytoodeen Maxamed Cali hay'adda daryeel bulsho dhibana kaab gudoomiyaha dhibana kaab ee arrimaha bulshada liibaan yaan ka tagay maamulka Saytuun. Cabdulaadan idinkugu mahad celinaa dad badan oo kaamirada ka dhuuntana waa jiraan. ilaahay khayr badan ha siiyaan leegalabta aadan u faraxsanahay. waxaan joognaa santarkeygi maxayto ilmaha maamadu ugu ahay alxamdulillaah waaba nala dharjiyay laakiin dharagtu waxaa xitaa kaloo ayadana nooga sii wanaag badan imaatinka naloo imaaday 86 caruur ah waaye. mid kasta wuxuu xambaarsan yahay sheeko asiga qusayso oo u gooni ah oo jeclaan lahay in laga koobiyo oo bulshada uu la wadaago. marka alxamdulillaah ilaaha ma hadda leh. waxaan dhihi lahay isxilqaan bulsho waay inteenan taagan qof walba intay fikirtay isxilqaantay isxilqaanka isxilqaamo wuxuu ka waxyahay sadaqada uu nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam oo 300 iyo naasaadada korka bini aadanka uu ka samaysan yahay oo xubin walba laga rabo subax waaga marka uu bariyo sadaqo in maxay ahaydtood ay bixiso. marka waxaan dhihi lahay restaurantiyada iyo kambaniyasha magaalada Muqdisho shirkadaha ka dhisan waxaan dhihi lahay sida ay restaurant Saytuun oo isu xilqaamo hal isu xilqaamo kaliya in loo imaado ma waxaa jiro meelo badan oo wax mudanaa jiro in loo tago mudanaa jiro. marka waxaan dhihi lahay shirkadaha iyo dadka ilaahay wax u dhiibo magaalada Muqdisho degan in maxayto ay isxilqaamaan oo isxilqaan bulsho ay sameeyaan wayba sameeyaan dabcan qof kasta Soomaali way sameeysaa laakiin baayaa jira in la laabo wadanka abaara ka jiro sidaan ula socono. waxaan dhihi lahay qof kasta oo Soomaali ah waa arintu madaxweynaha noogu baaqa waaye oo ahayd qof kasta oo Soomaali marka wax cunay ha ogaado in walaalkiis baahan oo jiro. marka aadan idinkugu mahad celinaa waa ku soo celinaa mar labaad iyo mar saddexaad shirkadaha restaurantiyada goobaha ganacsiga magaalada Muqdisho ka furan isxilqaan waxaa laga rabaa bulsho insha Allah. ومحسنتين سو دو نجمو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. marka ugu horeysa ilaahay mahad iska leh suurtageliyaha wax walba oo adduunkan ka socdo. marka xigtana waxaan u mahad celinayaa Mama Ogaas Foundation oo runtii kaalin dahabiya ka qaadatay baahida dadka danyarta ah iyo dadka caruurta ah ee u baahan in garab la siiyo. runtii waxaan ku leeyahay aad u mahadsantahay. runtii waxaad haysaa isku hawshay oo isku shaqushay waxay ahayd in maaragta qaranku uu istaago shaqadeeda in bulshadu wada istaagtaa isku hawshay. waxaan wax badan la socdaa taariikhda aad maaragtay aad ka soo martay inaad caruurtan aad maaragta xanaanaysid oo maaragtay aad caafimaadkooda iyo aqoontooda aad ka fikirtid. ilaahay waxaan kaaga baryay in miisaanka xasanaadka ku saaro maanta maalaad uga baahi badan tahay inuu ilaahay ku siiyo. inta kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo saaxiibadeeda qiimaha badan ee marti sharafta ah ee ka soo qayb galay barnaamijka walaashay Maria oo midigteeda taagan iyo asxaabta kale saaxiibadeeda Maxamed maxaa la yiraahdaa Ustaad Cabdistaar dhammaantiin runtii sharaf iyo maaragtay wax weyn bay inoo tahay meeshan oo kale inaan imaano annagana maaragtay ajar bay inoo tahay caruurteena qiimaha badan ee Soomaaliyeed soo booqanayna waxay u tahay wax wanaagsan oo dadkeeduna ka warhayaan ah. intaas kadib waxaan rabaa marka ugu dambaysa inaan u mahad celiyo runtiina aan iraahdo wax eri mahad celin ka weyn Saytuun Group oo aan dhihi karo waxay hormuud u noqdeen runtii arrin in ku dayashada mudan. marka ugu horeysa ilaahay ganacsiga idin barakeeyo
marka xigtana dareenkiina saafiga ee saxda ah ilaahay ajr ha idinka siiyo runtii waa wado cusub in restauranti magaalada caanka ah oo weyn uu intuu tago meel maaragtay carruurta lagu xanaaneeyo uu yiraahdo maanta anaga carruurta ka farxinayno runtii wax la heli kara ma ahan caqliga ay ku soo dhacday marka in uu hantidiisa meesha ugu saxsanayd uu ku bixiyo oo cunto intuu halka ka soo qaaday soo raray soo qurxiyay soo farsameeyay uu dadkii ugu mudnaan uu keenay runtii wax la heli kara ma ahan leeyahay ilaahay damiirkiina maaragtay idin sii siyaadiyo أجر بدنا إلهي دي كسيو وحني وح عادية ما هاد سميسان رنتي يعني وح عاد وعجيبة والربا إنه كده يدان مخايدها مقالة ذا سيدا يقول روح بدن يهين أو دلالة يان أو ماركتي شقين عيان هدي قدريمي لهايين ذاتك السحدة إن قرب للسيو ساعدنا ودك أنا معك متحقق أنا عشان واحد بدن بقى إسكا ماركتي يعني كوجوليسن لها سؤالنا كل واحد عذا إن ميل دن أو ماركتي إسكا قرحضو أو ماركتي لا قرحيو إن جناحسي إسكا كعو إن ماركتي اللي بتم بدن جناحسي لو جيستو وحلايا وقاركينا فكر سياسي واحد أظن إسبانيا لكن ماها وعمرك مساكينتي أو بنان كتاعن أو قاعديسن هنتدينا شاب كلو ورس دويا أما وي قرحيسا أما وي جبنيسا أما إنكار باوي مانيسا أما وي كعيسا meel laga soo gal ma weyn hadii uu hantidii meesha ilaa ugu talagalay lagu bixin waayo marka waxaan leenahay ilaahay idin barakeeyo ma ahan wax ku filan in aad hawo maasantiin runtii wax cajiiba bay igu tahay inaan markii ugu horeysa arko restauranti asagay shaqaalihiisa soo xilqaamay oo dhaan caruur agoon leh oo maaragtay dayacan oo darbi jiif ah oo maxal lahaa meelo dhibaatooyin kala badan oo maaragtay aad u tirabasimaan ugaas sheegtay qof walba oo ciyaalkan kamid 85 cunug qof walba qiso gooni u xambaarsan yahay dadkaas inaad soo xasuusataan idinkoo ku jira meel aan ogahay oo anigu oo customerkiina kamid ahay runtii wax cajiib weeyaan si siyaadiya hormuud bad magaalada u tihiin anigu waxaan idinku jeclaaday shaqada halkan ka haysaan ballan waaye markasta fursad hadaan u helo meeshan waa imaan doona la ajli dareenka aad yeelateen hadii la haydo dareenka aad yeelateen waxaad ku kasbateen wax kala maahan waxaad ku kasbateen wax kala ma xaqiiqatan waxa weeye caruurtaas aad soo xasuuteen meesha fogay joogaan inaad maanta waqti la qaadataan cajiib yani cajiib ilaahay yaa idin sharfo walaal waan jeclaan lahaa in ka badan idinka sii hadli lahaa lacala dareenkayga saan u cabiro ma ka gayoonaya laakiin wax ugu wanaagsan oo idho waxa ilaahay jannaha idin siiyo yaa sii saa'idiya khayrka ka niyo jabina waxa maanta aad caruurtan tarteen ganacsigiina ku noqonaysaa reerkiina ku noqonaysaa awlaadiina ku noqonaysaa wadankiina ku noqonaysaa marka waxaan leenahay makhaayadaha marka restaurantiyaasha quruxda badan ee xamar aan ku ognahay ilaahay oga cabsada waxa haystaan dadka soo gaarsiiya shaqaysta adduunkan u shaqaysta aakhirna ka shaqaysta dadka siyaasiyiinta iyo dadka hantiilayaasha iyo dadka lacagta haystana ka shaqaysta kuwana ka shaqaysta labadaba ka shaqaysta ya kuwana lacag ka shaqaysta kuwana ajir ka shaqaysta marka tusaale wanaagsan baa tihiin anagana sharaf inoo tahay meesha ka soo qayb galno ugu dambeyntii qof kasta Soomaaliyeed mas'uuliyad waxa ka saaran dhibaatada wadankeena taagan inuu qaybin xalkeeda noqdo ma ahan qofna wadanka dhan wada xalin karo laakiin inta yar kugu hareeraysan dareemaysid ficil la badashid waa waajib saaran weeyaan marka maamugaas aad ma santahay adigana hooy macaan garabkaagan taaganahay meel kasta iyo goob kasta waxaan ku kalsoonay shaqada ummaddu haysid guul iyo gobonimo iyo caafimaad badan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية dareenkayga farxadeed ma aqaano oraah ama aan ku qeexo erayo waxaan halkan uga mahad celinayaa Saytuun Restaurant iyo maamo ugaas oo isku xilqaantay hawshan weyn xaqiiqatan say walaashay najmo horay uga dhawaajisay waxay u istaagtay hool qaranka looga baahnaa hool bulshada looga baahnaa ma ahan hool shakhsi kale laga rabay xaqiiq bulshada fariinta kala u diray waxay tahay ganacsiyada bangiyada shirkadaha iyo restaurantada in ay ku daydaan walaalahan qiimaha badan maanta waqtigooda iyo juhdigooda u bixiyay maanta jimca waayay family in la qaatay ahayd saas ay tahayna xaqiiqatan waxay isku xilqaameen in ay farxad la qaataan caruurta ay maamugaas hooyada u ahayd maamugaas ay darbiyada ka soo aruurisay ورجينا مركزنا وأن شجاع جوابها عن سكوارنا مركز فرحات درتي ذا والله رأي يكل دميان ما نسى عن إذن كوقيحه حقيقة ما كي ما يسن قبل معلم وين وايتني تاريخ ذا لما قرأ حق إذا إسقوري دونته تاريخ معها وحقل يبوق لقو قرأ وإن إسقوري دونته وإحنا ذيك جم حد علينا يا ولا لهن كله وقت جودة بحيي وأن كفر أحسن هاي إن أنكسر قيب قله ماذا شان ذلك إن هالكاس كسي وضع waxaa mar kale ay ilaabeen yani waa milka group oo walaalkan Bashiir hogaamiye yahay inuu shaqadiisa maanta iyo waqtigiisna siinay asagana aad ugu mahad celinayna shaqada wanaagsan mar walbana Bashiir wuxuu aad xirfad ugu fiican yahay barnaamijyada ama sawir qaadista ha noqoto ama documentary ama film duubiska yani qof professional ku ah waaye waxaan xasuustaa hadda koor wallahi nadaafada marka aan bilaabeen documentary ama film naga sameeyay saameynta oo yeeshay iyo dadka noo imaadeen aan ka dareemna aad ugu mahad celin doonaa insha Allah sina runtii ganacsigoodana Allah barakeeyo
garashadooda qiimaha badan leh magacooda iyo adeegay hayaan in bulshada adeegeeda ka qaada inay ku soo celiyaan waxay qayb ka qaateen aan ogaay goobjoog u ahay ayaga iyo bahdoodaba iyo howlwadeenadooda waxay qayb qaateen bilic soo celinta magaalada gaar ahaan xeebta Liido sidoo kale maanta waxay kaalin weyn ka qaadanayaan shaqadii qiimaha badneed in maanta inay tiimkan quruxda badan dhalinyaradan kor u dhaafayo ku dhawaad 90 qof ilaa martidooda in maanta marti sooreen qadar nuuc qiimaha badan leh ee cunaan la joogaan maalintooda la qaataan si u sharfan ilaahay ganacsigooda ha u barakay igana ha u barakay Allah u barakay sidoo kale kaliya ma ahayn qadar waxay sameeyeen shahaado sharaf ay guddoonsiiyeen Maam Ugaas Foundation waan ugu mahadcelinayna laana qofka shaqo qabto in la dhawaa maasanta oo wax qiimo badan waxay dhiirigelinaysaa shaqada in hore u sii wadaan annagana sidoo kale waxaan ku dhiirigelinaynaa annagoo ah bahda ganacsiga Soomaaliyeed ama Somali Trade Show inaan ku sharafna shahaado sharaf dadaalkooda ay ku mudaysteen waxaan u gudoomi doono Cabdalla si fiican ugu sacbinsan rajaynaa duulayra sawir fiican laga qaadi doono insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim aniga ku hadlaya maamulka iyo howlwadeenada shirkadda Zaytoon Group waxa halka ugu mahadinayaa dhamaan cid walba nagala qayb qaadatay in barnaamijkan contribution ka geysano Zaytoon Group ay ku midaysan yihiin Zaytoon Palace Hotel Zaytoon Restaurant iyo farciyadeeda Zaytoon Creams Restaurant Las Cafe dhamaan waxa farxad inoo ah in maanta la qadayno la faraxno ka farxino Maam Ugaas iyo carruurteeda oo in badan maaragtay halkan lagu maaragtay kaalmeynay waxaan kaga mahadinaynaa insha Allah Maam Ugaaso maaragtay waqtiga iyo gelisay iyo juhdiga iyo oo hagar baxday carruurtan shalay meesha ay joogeen iyo maanta meesha ay joogaan farqi weyn u dhaxeeya waxa meesha fadhiya waa aabayaal Soomaaliyeed 10 sano 20 sano kadib sadarteeda waxa yaani nin walba reer buu maaragtay aabo noqon doonaa asagana caruur iyo waxa weeye soo saari doona insha Allah waxa ugu maaragtay baaqayna dhamaan ganacsiyada Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan maaragtay kaalmeynta iyo in barnaamijkan uu sii waaro ilaa sanawaad dhamaanteen cid walba oo ka qayb qaadan kartana waxaan ku bogaadinaynaa inay ka qayb qaataan aad baan kaga mahadinayaa dhamaantiina Zaytoon Restaurant waxa ka go'an Zaytoon Group waxa ka go'an in maaragtay ay si hormariso barnaamijyadeeda maaragtay bulshada ku celinayso aad baan uga mahadcelinayaa saaxiibkay Cabdi Sataar aad u mahadsan yahay oo maaragtay barnaamijkan laantiisa u suurta galeen iyo Maam Ugaaso oo maaragtay arintaas si fiican nooga shaqeysay dhamaanteen martida kale aad baan u salaamayaa ayakana aad baan ugu mahadinayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا كانوا xiran yahay